maxaad ka taqaanaa ninkii aasaasay ururka Xamaas? Waxaa jiray wiil ku dhashay tuulada Aljuura oo ah tuulo yar oo u dhow magaalada Ashkelon xilligii uu Ingiriiska xukumayay Falastiin. wiilka wuxuu u dhashay 1 January 1929. aabihii wuxuu dhintay isaga oo aad u yar oo qiyaastii 3 sano jir ah. waagaas kadib waxaa xaafadii uu deganaa looga yaqiinay ama looga yeeri jiray Axmed Sacda. Sacda waa magaca hooyadiis. dadkii xaafadda ayaa ugu abtiriyay magaca hooyadiis sababtoo ah aabihii waxa uu dhintay isagoo yar. haddaba wiilkaasi waxa uu ahaa Axmed Yaasiin. Axmed Yaasiin waxaa la dhashay 4 wiil iyo 2 gabdhood. isaga iyo qoyskiisa oo dhan waxay u qaxeen Gaza, gaar ahaan xerada Al-Shati, kadib markii tuuladiisii ay qabsadeen ciidamada Israa'iil intii lagu guda jiray dagaalkii Carabta iyo Israa'iil 1948. waxbarashadiisii dugsiga sare wuxuu u dhameeyay sanadka markuu ahaa 1958 isagoo bilaabay shaqo macalinimo. 20 jir markii uu gaaray ayuu ka qayb qaatay mudaaharaadyo lagaga soo horjeeday duulaankii 3 geesoodka ahaa ee lagu qaaday Masar sanadii 1956. waxaana beriyahaasi soo baxday codkarnimadiisii iyadoo dadkii oo dhanba ay aad u soo jiidatay khudbadihiisii, taasoo keentay in ay dabagalaan nabad sugadii Masar oo waaga ka talin jiray gacanka Gaza. sanadka markuu ahaa 1965 ayaa xabsiga u taxaabeen nabad sugidda Masar iyagoo ku eedeynaya inuu xiriir hoose la leeyahay ururka Ikhwaanul Muslimiin, isagoo muddo bil ah xabsiga ku jiray. sanadda markay ahayd 1967 markii ay Israa'iil wada qabsatay dhulka Falastiin oo gacanka Gaza ay ku jirto, ayuu bilaabay inuu ku guubaabiyo dadka khudbadihiisii dhiirigelinta ahaa ee uu kaga soo horjeeday gumaysiga Israa'iil ee dhulkoodii boobay, isagoo isla markaana ururin jiray kaalmooyin la siinayo qoysaska laga shahiiday iyo kuwa laga xiran yahay intaba. wuxuuna markii dambe madax ka noqday kulanka Islaamka ee gacanka Gaza. dhaqdhaqaaqyadaasi waxay ka xanaajiyeen ama ay ka careysiiyeen Israa'iil, taasoo keentay in sanadka markuu ahaa 1982 la xiro laguna xukumo 13 sano oo xarig ah. hase yeeshee 1985 ayaa laga sii daayay sababo la xiriira isweydaarsi maxaabiis oo dhexmaray dowladda Israa'iil iyo jabhadda shacbiga xoreynta Falastiin. sanadii 1987 ayuu Sheekh Axmed Yaasiin kula heshiiyey koox ka mid ah hogaamiyaasha Islaamiga ee leh fikirka Ikhwaanul Muslimiin. asaasida wuxuu kula heshiiyey inay aasaasaan urur Islaami ah oo la dagaalama Israa'iil. ururkaasi oo loo bixiyay dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ah oo waana ururka hadda la yiraahdo Xamaas. wuxuu qayb laxaad leh ka qaatay kacdoonkii waqtigaasi ka bilowday deegaanada Falastiiniyiinta. kacdoonnadaasi oo loogu magac daray kacdoonnadii masaajidka. laga soo bilaabo waqtiga waxa uu ahaa aabaha ruuxiga ah ee dhaqdhaqaaqaasi.